webiga Shabeelle ee dhexmara magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa cabsi weyn laga qabaa inuu ku fataho magaaladaasi Jowhar iyadoo maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabeelle uu ku baaqay inta aysan talo faraha ka bixin in wax lagala qabto fatahaada oo markaasi laga yaabo inuu geysto webiga Shabeelle. wariyaha inooga soo warrama magaalada Jowhar Ibrahim Cali Nuur ayaa warka inoo soo diray. sanad waliba xiliyadan oo kale webiga Shabeelle markuu biyo badan keeno wuxuu fatahaad ka geystaa deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe taasi oo waxyeeleysa dadka iyo dunyada. haddaba si fatahaadaasi looga gaashaanto loogana taxadaro ayaa maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle waxay howlo caratuur ka bilaabeen meelaha ugu jilicsan webiga lagana baqdin qabo inuu fatahaado ka sameeyo. howlaha caratuurka ayaa wasaaradda beeraha waxay ka bilowday xaafadda horseed ee magaalada Jowhar gaar ahaan beeraha jeeri oo ka mid ah meelaha ugu jilicsan webiga. wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ayaa bulshada ugu baaqay inay isxilqaamaan oo ay garab istaagaan wasaaradda. mudane gudoomiye maalintii saddexaad hawshan wadnaa haddii la waayay hay'ado wax qabto dadka inaan u horkacno inay isxilqaamaan gobol wasaarad degmo shacab ay iska kaashadaan ayaa booliska go'aankii wasaaraddu ay noqotay oo u jeedaa howlaha socdo ma aha mid gobolka Shabeellaha Dhexe ama degmada Jowhar kaligeed qorshahan ku eg yahay in la iskaashado oo biyo laga hortago dhammaan Hirshabeelle in arintaan oo dhan gaarto meelaha 59 meel oo biyaha ay ka baxaan oo qatar ku ah webiga biyo markuu keeno inay dhibaato gaarsiiso beerihii oo aan hawshaas ka bilownay. waxaan leenahay ka gobol ahaan in arintaan qaybtiina ka qaadataan sidii baan ku ballanay. hawshana meel fiican inoo maray maalintii saddexaad ayaan maraynaa ilaa ay maalinta ugu dambeysana hawshan waa sii wadi doonaa. dhinaca kale gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa fariin u diray cid waliba gacan ka geysan karta ka hortagga fatahaada webiga Shabeelle. ma nihin dad jiifo waa dad soo jeedanahay haddana mar inaan wax qabsanaba aan go'aansanay marka cid allaalay cidii maartay wax nala qabahayso intaan soo jeedno taagan wax nala qabato hadhowto maartay anaga aan wax qabsanay in la soo cabasheeli yiraahdo maartay waxba idin la qabayna waxay soo kordhiyaysa malo marka haddan taaganna inaan wax qabsanaa rabnaa inaan maartay waxaan kari karno aan qabsanaa u diyaar u nahay cid allaalay cidii maartay wax nala qaban rabta ama garabna sii rabtay waxaan rajaynaynaa inta aan maartay wax qabsiyo weyno inay aydan nagu soo biiriyaan wasaaraduna maartay waa shaqo wanaagsan waa shaqo wanaagsan oo farxad leh. Ibrahim Cali Nuur TV Universal Jowhar.